السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب شرفت بدن كسر دوادا شانل كبرشدا سومالي كريبتوفوليو إيوه موضوع آد وحساب بدن. تاريخ البيتكوين كهدين نتبو يرى نقولنا 2010 كي بيتكوين كو بحوها لحسن تبوها قبل يسوون كسوق علي لحسن تبد مدينوها وحكما كبير يعني لحسن تي هذا سعودت وسيك عي وقت يدلو كلنا وحو قاري 2018 كمركي هاي وكا وحو قاري وح كله لبعتنكم وكسو دوادي وح كله كدب وقت كان حالي قاعد نشوفنه وحو قاري ماشي يقص الرئيسي بيتكوين كيو قاري ما عنده تو وحو كله إنه صوتها بتو لحدا كون أو دولار وقت كان أن فيديو قدوبي أنا وحوي تاريخ دو وبشي صدحات وبن كيدي 2021 واركتها بيتكوين كحمرية 56,000 marka hayaabin in ganacsatada adduunka ugu waaweyn inay maalgeliyaan cryptocurrency-ga sida ninkii maanta uu ka hadlaynay Tesla Elon Musk inuu lacag gashaday cryptocurrency-ga inuu ninkan Richard Branson ninkan company-ga Virgin iskale inuu isaga laftiisu lacag badan gashaday markii bitcoin-ku bilowgii ay ahayd inuu lacag badan gashaday Bill Gates oo Microsoft la isaga laftiisu waad aragteen inuu wax fara badan inuu meesha wax gashaday laftiisu company fara badan oo adduunka ugu waaweyn adduunka hadaad gashid internet-ka aad baadhid bitcoin kaliya ku qortid waxaad ku arkaysaa kumanyaal kun oo company oo ka ganacsada meesha bitcoin kaliya ma aha waxa weeye lacagaha kala duwan oo fara badan baa imika soo baxay oo santiyo ahaa oo maanta gaadhay kumanyaal kun gaadhay laakiin طبعا marka Soomaalida la eego Soomaalidu system-kan cryptocurrency-ga wali way waxaad moodeen ku cusubnahay لأنه dadkii wax fikradihii kala dhacsanaa lacag baa laga dhacayaa ama waxyaalaha laga dhacayaa ama lacag laga dhacayaa kambaniyada baa batay dadka lacagaha ka dhacayay marka sida awgeed ugu lama yaabsani in dad badan ka baqaan waxa la dhaho cryptocurrency lama yaabsani لأنه hore ayaa moogtay loo far badan looga soo dhacay chief watcher laga soo dhacay kambaniyo bug ah oo sheegtay magaca cryptocurrency baan ku shaqeynaa waxaanu nahay cryptocurrency-da adduunka ugu fiican baanu nahay annaga wax kasta ka fiican kambaniyo badan oo magacyada sheegtay ayaa Soomaali lagu soo dhacay marka lama yaabsani in ay Soomaalidu cabsi kaga jirto cryptocurrency-ga laakiin wax laga baqo ma aha waxa weeye wax adiga gaar ku ah wallet-kaaga wax kasta gashanaysa lacagta aad gashatid cryptocurrency ama coin-ka aad iibsatid qiimihiisu jaban yahay mustaqbal kale lacagta aad gashanaysa cid kulama maamusho cid kulama laha adaa iskale broker ama qof kule lacagtaada keen anaa kugu shaqeynaya ma aha waa ka duwan tahay boqolkiiba boqol waa ka duwan tahay shaqo iskuma laha dad badanna dhinaca markay ka hadlayaan forex dad badan oo weydiiyay oo asxaabta ah oo igu yiraahda forex isku mid miya iyo cryptocurrency ma shaqo isku malaha forex waa business gooniya cryptocurrency oo business gooniya suuq kasta wuxuu leeyahay systemkiisa goonida ah stock market-ka iyo dahabka iyo petrolka iyo waxyaalahaas waa suuq gooni ah suuqan foreign exchange suuqa forex waa suuq gooni ah foreign exchange oo lacag kala bedesho kaasoo system gooni u leeyahay ku shaqeeyo yani bil ikhtisaar iyadoo la soo gaabiyo waxaad oran kartaa suuq kasta wuxuu leeyahay nidaam gooni ah oo ku shaqeeyo protocol gooni ah ayuu mid kasta leeyahay nidaam gooni mid kasta leeyahay marka suuq kasta wuxuu leeyahay nidaamkiisa uu ku shaqeeyo iyo qawaaniintiisa uu leeyahay dad baa suuq kasta ka shaqeysta suuq kasta gala oo lacag hela markasta waxaan rahdaa cryptocurrency-gu ma aha suuq loogu talagalay network marketing bonus scheme inaan laba qof keentid oo midig iyo bidix ka xiga kana dad keeno you don't need uma baahnid inaad dad keentid oo ku sii xigana dad kale oo lacag kaga heshid oo ah multi level marketing waxa loo yaqaan shaqo isku malaha totally ilaa imikadan dad baa ilaa imikadan aaminsan inuu suuqa cryptocurrency-gu yahay suuq dad la keenayo oo la hoos dhigayo oo gacan midig iyo gacan bidix kana waa inuu keenaa konton qof kana waa inuu keenaa konton qof la shaqo isku malaha kana waa suuq gooni ah lacagtaada gashanaya oo ku shaqeysanaya marka ya ahbaab taa la socda suuq kasta wuxuu leeyahay khusuusiyaadkiisa wuxuu leeyahay nidaamkiisa shakhsi ahaan marka nafteeda ka hadlo waxaan doortay suuqan cryptocurrency-ga inaan ka shaqeeyo waa very simple sida loo fahmana waa easy waa fududahay inaad baratidna waa system aad u fudud oo aan u adkayn waxaad u baahanto waxa weeye kaanu ka furo exchange-da waaweyn caalamiga ah mid ka mid ah lacagtaada gasho ka faa'iideyso marka uu sicirku uu maartay qiimuhu markuu hoos u dhaco ka faa'iideyso marka uu kor u kaco qiimihiisa ka iibi waa very simple waa nidaam basiit ah oo aan madax xanuun u baahnayn iyo maalinba in dad baa isqabsaday dad baa business ku qabsaday kan baa kan qabsaday uma baahna kan waa wax adigu aad leedahay san u sheegay oo adiga khaas ku ah oo aadan cidna shaqo ku lahayn midda kale ee Soomaalidu gaar ahaan shacabkeena ay aad uga hadlaan ay yiraahdaan oo bitcoin-ku wuu cararay wuxuu marayaa 56,000 buu marayaa muhiim ma aha yani sharad ma bitcoin eegtid waxaad eegtaa kuwa kale يعني مثلا مثال فدود بنسينيا كوين كباينانس لده باينانس وكوين كده ما exchange كدن أو باينانس كوين كاي جايز كله تبغى نقول نقو ودوام وي وغورما وديسمبر وغورما
iska bada waxaad tiraahdaa 2-3 bilood ka hor December December wuxuu marayay 29 dib u noqo December 3 wuxuu marayay 30 bas ka dhow marayay maantana wuxuu marayaa dib u yara noqo maantana wuxuu marayaa 283 maalmood wuxuu marayay 360 miyay ahayd waa 3 bilood ka hor yani qofka ka maal gashan lahaa yani very simple qofka مثلا coinka BNB wax ka qaatay wax ka xabsaday markii uu ahaa qiimihiisu xabadii baa 30 ama dib u noqo bil ama 2 bilood dib u noqo uu ahaa qiimihiisu uu ahaa 20 qofka gelin lahaa $2,000 haddaad tiraahdid waxaan iibsaday coinka xabadii oo 20 ah wuxuu ku siin lahaa 100 xabadood oo ah BNB 100 xabo hadda ku dhufatid marka uu qiimihiisu gaaray 3 iska bada 360 buu gaaray 300 kaliya iska badhe waa 30,000 yani labadaadii kun waxay ku dhashay 30,000 marka way badan yihiin yani fursaduhu way farbadan yihiin fursad kaliya ma aha laba ma aha Ethereum ka imka aragtaan bari dhowto intuu maray waka maalmo dhowto bishii October wuxuu maray 340 November 500 buu gaaray December 600 buu gaaray hadii uu December 600 gaaray maantana wuxuu marayaa aragtaan maantana wuxuu marayaa 1800 maantana wuxuu gaaray $2,000 marka fursaduhu way farbadan yihiin san u sharaxay fiidiyadii hore coin badan baa soo gala suuqa oo santiyo soo gala wax jabal iyaga ku soo gala oo qiimo ba lahaynba waa loo sabraa waa la sugaa dadka ganacsiga yaqaan ee ka trade gareeya way ka faa'iideystaan dadka kale ee meel iska haysta dhowr bilood sanad gudaheed 2 sano noqoto xitaa coinkii wuxuu noqonayaa maybe 100 jibar ama 1,000 jibar buu noqonayaa coin ba garanaygo santiyo ah dad iibsaday oo cirka tageen oo dadkii aad uga faa'iideysteen marka challenge uu badan yahay fursado way badan yihiin baashan hala barto cilmigan hala barto laga faa'iideysto cryptocurrency gan waxa weeye waa technology-da casriga blockchain kana maqashaan iyo cryptocurrency gan iyo waxaan waa technology-da imka adduunka qabsan doonta ee laga faa'iideysan doono markastana waa iraada waana ku soo celceliyaa laga faa'iideysto channel-yada dahabka ah marka waa inaad si fiican u dhex gasho meesha waa inaad systemkeeda fahanto qaabka u shaqeeyaan wallet-yadu wallet to wallet marka crypto qof u diraysid wallet to wallet مثلا qofka marka aad lacag cryptocurrency diraysid adigii baa bangi ah exchange aad ku jirtay baa bangi ah taas kaligeeda waa bangi ah oo baan wax kale Coinbase istaa kamida coinanka Litecoin oo kale مثلا qof jooga New Zealand ama Australia oranaysa war isoo dir xabad Litecoin ah xabad Litecoin ka ahayd deposit bad galisa deposit lambarkaaga ku bigareynaysa waa walletkaaga waka adaa iskale walletka Litecoin baa iskale boqolaal coin baa jira oo aad ku qori kartid magacooda anything oo ay ku bilow kuwa waxaas oo waa coinan hadda tiraay مثلا waxaan doonayaa coinka isorar مثلا coinka la dhaho mid uu dooro ani coin oo aan doorano مثلا coinka avax oo kala tir isoo dir avax wuxuu qoranayaa okay lambarkaasan leeyahay waa lambarka igu soo wax xawaalad oo kale ama igu soo dir network igu soo dir oo lambarka igu copy gare ama kan igu soo dir oo kan igu copy gare waa very simple hadda waxyaalo badan baa isbedelay cryptocurrency ay u baahan yihiin dadku inay fahmaan marka technology-da tan qofka maanta barta dadka wuxuu ka horeeyaa 10 sano anu taasan aaminsanahay qofka maanta cryptocurrency barta fahma waxaan aaminsanahay inuu dadka ka horeeyo dhow iyo 10 sano hadii 20 sano noqon laana waqti baa imanaya lacagahan oo dhan laga guuri doono oo digital man iman doonto oo meel kasta qabsan doonto hadhow dadkii waxay taagnaanayaan meel xagee ka bilowna xagee ka barana marka iminka fiican qofkii inuu fikrad ka qaato oo wixii ka sii barto business-kan waa sanadin sheegay waa ka duwan business-yada kale aragtaan oo dhan waxa weeye wax adiga gaar ku ah walaalaha channel ku xidhan ee aan iska diiwaangelin exchange-yada ugu waaweyn adduunka ugu muhiimsan ee la dhaho Binance kaasan aad hadda uga hadlaa laano exchange-ka adduunka oo dhan ay la tacaamulaan lacagahooda geliyaan bay'ac mushtar ka sameeyaan ganacsiga ka sameeyaan sababta aanu yiraahdo why exchange-ka Binance baa loo doortaa adduunyanaha oo dhan ay uga shaqeystaan waa taas waxa weeye markaad cryptocurrency coin market cap gashid exchange-ka adduunka ugu sareeyo waka lacagta maanta 24 hours-kii in dhaaftay ugu dambeysay waxaa la geliyay 26 billion ma aha million waa billion oo dollar baa la geliyay oo lagaga iibsaday gudihiisa intaas oo coin oo kala duwan ee laga iibsaday marka hayaabin yani exchange-yada ka dambeeyo dhan waa aragtaa way ka yaryihiin lacagaha la geliyo ka yaryihiin يعني ككوحيga هو Coinbase oo 2 bilyan Binance-na 26 bilyan baa la geliyay waa maanta waa 24 hours-kii ugu dambeysay weeye sida ogeed dadku raacdaa bahalka iska diiwaan geliya waa muhiim weeye mustaqbalka waxa soo baxay exchange fara badan laakiin kan ku adkaada qaabka security-ga qaabka la iska diiwaan geliyo qaabka loo habeeyo qaabka details-ka loo geliyo kulligood waxaan idin soo dhigay video-gan hoostiisa ama comment-ka ugu horeeya ayaan idin soo diray sida fudud ee la iska diiwaan geliyo iyo referral number-kayga haddaa rabtaan inaad ka faa'iidaystaan exchange-kan Binance insha Allah lana si share walaalaha haddaad nagu cusub tahay insha Allah subscribe channel-ka oo gambaleelka taabo si wax kasta oo aan ka sameeyo cryptocurrency ku soo gaaro insha Allah mobilka ku soo dhaco video-gan haddaad ka heshay like ha ku bakhayn insha Allah sina share ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidaysto ha fahmeen inno waxaa jira wax la dhaho cryptocurrency oo real ah oo shaqeynaya
oo dadku ka faa'iidaysan doonaan. Fiidiyoyadii hore u daawada kulligood waxaan idinku taxay videogan hoostiisan kulligood idinku taxay xabad u daawo, take your time. gurigaaga markaad tagtid koobkaaga shaha ama kofiga ah dhag ku sii adoo si fiican u baashaalaya qahwahaaga u cabaya videoska aad aragtid oo dhan daawo ka faa'iidayso. barakallahu fiikum. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.